waxaa la deganaashoon caga badan ku taagneen laga dareemaya degmada walawen gobolka shabeellaha hoose oo saaka ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka konfur galbeed Soomaaliya. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ciidamada taraafikada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada walawen ay weerar ay ku asqeeyeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta konfur galbeed Soomaaliya, sidaasina uu ku qalxay dagaal xoogan. Dadka ku sugan degmada walawen oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in waaberigii hore saaka ay maqlayeen hugunka madaafiic culus oo ay isweydaarsanayeen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. Ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa konfur galbeed ayaa gurmud ahaan u soo gaaray kooxdii lagu weeraray halkaasi, halka ciidamada dowladana ay gurmudyo ay ka helayeen dhinacooda. Dagaalka ayaa la sheegay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo galgaaray labada dhinac, sida ay ku soo waramayeen dad ku sugan degmada walawen. Ku dhawaad 8 askari oo ka tirsan daraawiishta konfur galbeed ayaa goob qura lagu dilay, halka 5 askari oo ka tirsan ciidanka dowladana ay ku dhinteen intuu socday iskoorimaadkaasi. Degmada walawen 4 maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo khasaare geystay, kaas oo u dhaxeeya maleeshiyaad ku wada sugan gudaha degmada walawen ee gobolka shabeellaha hoose. Dagaal beeleedyada ku soo laabta degmada walawen ee gobolka shabeellaha hoose ma jirto cid si gaar ah wax uga qabatay haday ahaan lahaayeen maamulka konfur galbeed iyo dowladda Soomaaliya. Iskaba daayeen waxay ka qabtaan waxa gudaha degmada walawen ku dagaalamaya ciidamo ka kala tirsan maamul goboleedka konfur galbeed iyo dowladda Soomaaliya, waxaana khasaaraha ugu badan ka soo gaartay dadka lagu dul dagaalamayo. Xaafadda Muuri waxay ku taala bartamaha magaalada walawen ee gobolka shabeellaha hoose, waxaana saaka in muddo ku dagaalamayay ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka konfur galbeed oo isugu faanaya midka kale hubka uu haysto. Dadka lagu dul dagaalamaya waa shacab aan hubaysnayn oo ku nool gudaha degmada, waxaana maleeshiyaadka ay isku haysteen sida la sheegay kastamarka lagu qaado canshuuraha degmada walawen, kaas oo markii hore ay haysteen ciidamada taraafikada walow markii dambe ay gacanta u gashay ciidamada konfur galbeed Soomaaliya. Saasna uu ku bilowday in kooxda taraafikada ee dowladda Soomaaliya ka tirsan ay saaka ay weerar ay kula saladaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka konfur galbeed. Dagaalkii saaka ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u culus, isla markaana in muddo gudaha degmada laga maqlayay hugunka madaafiic culus ay isweydaarsanayeen labada dhinac. Dad goobjoogayaal oo ku sugan degmada walawen oo la hadalnay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in labada dhinacba ay soo gaarayeen gurmadyo. Wararkii ugu dambeeyay caawa naga soo gaaraya degmada walawen ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in labada dhinacba gurmadyo ay soo gaarayaan, lagana cabsi qabo in mar kale halkaasi ay ku dagaalamaan. Degmada walawen waxa ay ka mid tahay degmooyinka wax soo saarka ugu badan ee gobolka shabeellaha hoose, waxaana xilliyada qaarkood caburiya maleeshiyaadka ku hardamaya gacan ku haynta degmada walawen ee gobolka shabeellaha hoose iyo ciidamada laftooda oo isugu faanaya hubka oo ku wada sugan degmada. Gudoomiyaha maamulka degmada walawen ee gobolka shabeellaha hoose taa kuma lahan inuu ka hortago weerarada ay soo qaadayaan ciidamada dowladda ka tirsan haday ahaan lahaayeen militariga qaybta 7 ee ku sugan degmada walawen iyo ciidamada taraafikada oo afaafka hore ee laga gala degmada ay ku sugan yihiin. Isku soo wada duuba dagaalkii saaka ka dhacay degmada walawen ayaa la xaqiijiyay in tirada guud ee ku dhintay lagu qiyaasay in ka badan 12 ruux, halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen. Mana jirto cid si gaar ah loogu xilsaaray inay wax ka qabtaan ama ay baajiyaan dagaalada maanta ka dhacay degmada walawen ee gobolka shabeellaha hoose.